السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أخيارتي يوتيوب كويدين ودا سلامي maanta cashigeena wuxuu ku saabsan yahay sida aad ugu xanibi lahayd Photoshopka internetkaaga tusaale ahaan sidaad u fahanto hadalkayga shirkadda Adobe waxay ogashahay in programskeeda la isticmaalo 7 maalin oo qora si free ah intaas kadib waxaanu isticmaalnaa crack si aan ugu gudubno muddada ay inoo qabteen kadib markaan crack-gareeno update uma diri karno sababtoo ah shirkadda Adobe kama aanan soo iibsanin waxaa khasab ah inaan haddii aanan haynin serial number ama license number waa inaad ka xayirtaa internetka Photoshopka markaad daawasho wanaagsan kadib waxaad soo furanaysaa start menu ayaad soo furanaysaa marka start menu aad soo furato kadib waxaad ku qoraysaa file ayaad ku qoraysaa kadib meeshan ugu horeyso Windows Defender Firewall ayaad ku dhufanaysaa markaad intaas ka xulato kadib waxaad ka sii xulanaysaa Advanced Settings ayaad ka sii xulanaysaa Outbound Rules ayaad ka xulanaysaa markaad ku xulato kadib waxaad leedahay New Rule ayaad leedahay kadib waxaad fiirisaa meeshan inay ku dooran tahay Programs kadibna Next ayaad leenahay kadib meeshan haddii ay meeshan kore ee all programs haddii aad jeega saarto waxaad dhammaan ka xayirtay wax walbo application ah computerka ay ku jiro laakiin this program path waxay ku cadeynaysaa kaliya in applicationka kaliya aad rabto inaad ka xayir karto kadib waxaad ku dhufanaysaa saad ugu xayirto browse ayaad ka xulanaysaa markaad browser aad ka xulato kadib this PC markaad ku dhufato oo local drive C ga aad ku dhufato kadib saad u jeedo meeshan program files midka ku qoran waa waxa ku jiro programska 64 bit ayaa ku jiro intana waxa ku jiro programska 32 bit ayaa ku jiro marka sana wada ognahay programska badana had la soo saaro waxay u badan yihiin 64 bit kadib waxaan ka xulanaynaa program files ayaan ka xulanaynaa markaan xulano kadib waxaan ku dhufanaynaa Adobe ayaan ku dhufanaynaa markaan Adobe aan ka sii xulano waxaad ka sii xulanaysaa Photoshop Adobe Photoshop CC markaad Photoshop CC ga aad xulato kadib waxaad ka sii xulanaysaa Photoshop waa iconka Photoshop oo kaliya ayaad ka xulanaysaa meeshan saad u jeedo iconka Photoshop ka xulo kadib markaan xulano oo okay aan dhahno waxaad ka sii xulanaysaa next ayaad leedahay markaad next aad dhahdo iska fiiri optionkan ugu hooseeya block the connection ayaad ka sii xulanaysaa kadibna next saad u jeedo waxyaabaha dhammaan aad ka xanibayso internetka la adeegsado waa mid domain mid private mid public ayaa jiro intaas waa inuu wada naqaanaa marka kadib waxaad leedahay next kadib meeshan waxaad ku dhufanaysaa sheyga aad adiga xirayso magaciisa ayaa meeshan ku qoraysaa Photoshop ayaan ku qoranaynaa kadibna meeshan description-ka sidiis ayaa iskaga tagaysaa wax muhiimad weyn ee hadda ay sii leedahay malahan kadibna waxaad leedahay finish ayaad ugu xanibtay Photoshopka internetkaaga ugu dambeyntii fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan si ay ugu faa'iideystaan haddii videoga aad ka heshay like dheh waad ku mahadsantahay daawashada videogan waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu